في قلبي من رشادي في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. الدعوة سرا أيان باللوغ يدا كجرني. الدعوة سرا ودرسيغاني طبعا يا أفراد سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوة النبي محمد الدعوة سرا وينوصر دماتي محان كجرني هذا الدعوة جهرا. نبينا عليه الصلاة والسلام سد حديث سنة بعد ذلك هل كسرنا قبل الله بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي وحال فري صلى الله عليه وسلم بالجهر دعوة إنه لا جهر الله فري سد سنة مركي صوص عطي دعوة سرا نبي محال فري كبعد وحال فري إنه حقا لا جهر أو سن هوس أردجين أو بنانك صادقه أو ميرابورا أنت استاجو ضد كدن أو مغشيو وحسود دقوتي آيات النوع ما دونتا فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بسود دقوتي آيات سورة الحجر بيكوشرتا سورة الحجر حجر هو مالي دقي تشرين قلد اللي يرهدو قوم الثمود نبي الله الصالح قوم كيسي مالي دقي تشرين ويان marka waa togay degi jireen baa xijri la yiraahdaa walaqad kadhaba ashaabul xijri al-mursaliin bu ilaahi leeyi ashaabul xijri qolada la yiraahdo waa qawm thamuud rusushi ilaahay way beeniyeen weeyaan nabiga waxa la faray dacwada inuu la jahro kitaabka noo sheega waa ka baada dalika saddexda sano ka bacdi umira nabiga waxa la faray sallallahu alayhi wa sallam bil jahri dacwada inuu la jahro بقوله تعالى بالغفري آيادا بالغو أمر النبي عليه الصلاة والسلام فاسدع لجهر بما شيء تؤمر اللغو أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعرض جيسو عن المشركين قال ذا كجيسو النبي إلهي حق الدلاعي فيرها كالدلاعي دلاعي ذو توريكو دلاعي ما أقو حق البنان كصوري قويان قال ذا كجيسو oo gaal kasta oo ku dicaayadeeya waxba ku farin nabiga ilaahiyo ha u aabayeelin waxba macnaha ku farin islaamkii hadda wuu xoogoobaye cadadkii wuu bataye ilaahay wuxuu u waxyooday aayadan baa la amray aayadan markay soo dagootay nabigu muxuu sameeyay waa ka nabigu wuxuu sameeyay calayhi salaatu wasalaam fasa'ida nabi muhammad wuxuu dul fuulay ala safa buurta leeyahay as-safa waa buurtee waa buurta laga bilaabo xajka marka la joogo acmaasha sacyiga umrada iyo xajka marka la sameeynayo midka laga bilaabo sacyiga soo ma aha inna as-safa wal marwata min sha'airillah buurtaas laga bilaabo orodka waa laba buurood inta u dhaxdo waxa la ordayo toddoba mar baa la ordaa sacyiga waxa shardi ah an yakuna ba'da dawaaf wuxuu mar walba inuu dawaaf daba dhaco dawaafkaas wuxuu noqon karaa dawaaful quduum xaj haduu yahay ama wuxuu noqon karaa dawaaful ifaadada dawaafka la yiraahdo marka dawaaf inuu ka dambeeyo shardi weeyaan buurtaas uu nabigu dul fuulay calayhi salaatu wasalaam si ummadoodan ugu jeedo meel kore oo nabigu fuulay sallallahu alayhi wasallam oo qarsoonayn xaqiibu la jahraya wanaada qawmahu qomkiisi buu yeeray qomkaygiyo isku yimideen فلما اجتمعوا مركي صاكل من قال النبي محمد با وحو يري لهم قوم كيس وحو يري هل تصدقونني ده ما يرمينيسين ما يرميسنيسين فيما شيء أخبركم عن إذين شاقو به ماغا وحان إذين شاقو ما يرميسنيسين ساسوي معنى هيدو فقالوا وحيدين جميعهم دمانتود نعم ها بين لوبكو من نقان رلوبكو نقان ما جربنا ما أنن انتحام ما أنن تجربين عليك دشادا كذبا بين مد نشأتك برباري دادي يران تلقى صوب اللابو إلى الآن حد لقى سوقارو
weligaa kuguma aanan tajribayn wax la yidhaha been kuguma naqaano nabiga ilaahayo waxaan kuu naqaan inaad tahay runlow weligiiba aan been sheegin markaas aanaan kuu rumaysanayn weeye waa ku rumaysanaynaa nabiga ilaahayo hadalaa soo socda cajiiba faqaala nabi muxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama anqiduu badbaadiya saas baad u shaqlaysaa anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina badbaadiya min annaari naar ka badbaadiya innii anugu nadiirun diga baan ahay nadiir maxaa la yidhaah midka ummadda u diga nadiir baan ah lakum adinka mid idin digaya oo xaqa baadilka idinkaga digaya ee cadaabta baan ah min cadaabin baan idinkaga digayaa cadaabkaasoo shadiidin daran buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu ku yidhi waxaa ka mid ah haddaan idin dhaha buu yidhi buurtaa dhabarkeeda cadow farda wata oo idin layn raba baa soo mara haddaan idin idhaahdo ma iga rumaysanaysiin nacan bay dheheen waa kaa rumaysan nabiga ilaahayo markaasuu yidhi cadow suu ka baqi maysiin wax ka daran baan idinkaga digaya waa cadaabta ilaahay wax ka daran ayaan idinkaga digayaa oo cadaabta ilaahay ah ee iga rumaysta buu yidhi jawaabtii loo dhahay waa kan ayagu hadal fiicanay qaarkood kula hadleen qaar way iska aamuseen laakiin balaayada ugu daran oo lekadka muxuu noqday abulahab ninka layidhaha cabdulcuza layidhaha magaciisa cabdulcuza ayaa abulahab loo yaqaan abulahab holaca aabbihii baa loo bixiyey holaca naareed buu aabbo u yahay naar buu aabbo u noqday yacni balaayu aabbo u yahay weeyaan balaayu aabbo u yahay wax khayrla aabbo uma aha abulahab baa ugu darnaa oo nabiga laf dhuungashay ku noqday calayhi salaatu wasalaam abulahab wuxuu yidhi halaag ha kugu dhacee danteennii baad na soo dhaafida buu yidhi maanta wakhtiga waad naga lumisa buu yidhi aad baan uga xuma maca alasaf ma waxaad noogu soo yeertay ilaahay ka cabsada maad noogu soo yeerta buu yidhi waxaan islahay wax khayr le buu sheegi doonaa wiilkaagu ilay waxa dhamad noo soo wado waa ilaahay rumeeye oon warna dhaaf buu yidhi wiiliyo markaasi aayaddaani soo degootay tabbad yadaa abilahabin wa tabba markay soo degootay ayuu wuxuu yidhi qur-aanka uu nabiga lagu soo dejiyey oo sheegaya in lay halaajinayo aakhiro haddiiba cadaabu jirta ma rumaysniye wiilal baan leeyaha buu yidhi xoolana waan leeyaha buu yidhi marka in la maago cadaabta la ii wado laaluushaan bixinaa buu yidhi wiilashaan markuu dhiibayaa marna xoolahan laaluushuu dhiibayaa buu yidhi waa jees markaasaa waxaa soo degootay maa aqnaa canhu maaluhu wamaa kasaba xoolihiisii iyo wixii shaqaystay oo wiilasha looga jeedo labadu waxba kuma tarin baa la yidhi sawjadiisii asagaba cadaabta loo ballan qaaday waana kan faqaala wuxuu yidhi lahu nabiga wuxuu u yidhi camuhu adeerkii abulahabin ahaa tabban halaag laka adiga ha kuu sugnaadee yaa muxammadu muxammadow alihaadaa arrinkaas miyaad jamactanaa noo soo kulmiday oo kulligeen ma waxaad noogu yeertay ilaahay rumeeya waadna lugayda buu yidhi fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey fii xaqihi abulahab xaqiisa iyo arrintiisii suurata allahabi fiiri suuradda magaceeda suuraddii abulahab loogu magac daray ayaa macnaha soo degootay tabbat way allow ay halaagsameen yadaa abilahabin abilahab labadiisa gacmood wa tabba wuuba halaagsamee allow halaag ay ku dhaceen weeyaan waa ducaa calayhi baa la yidhahdaa ilaa aakhiri aayadda oon dhammay adugu as'ila haadihi as'ila kam in mise sanatan min sanatin oo sanooyina ayay istamarat iddacwatu dacwadii daa'imtay istamara maxaa la yidhaha daa'imid weeyaan dacwadii asiriyatu dacwada nabigu hoos u wadan soo marnay meeqa sanay socotay 3 sanawaad 3 sano waanagii soo marnay man ruuxeebaa jahara bidacwati maya mataa goormuu dhe nabigu jahara la jahray bidacwati goormuu nabi muxamed la jahray dacwada oo addacwatu jahran goormay bilaabatay markay soo degootay fasdac bimaa tu'maru wa acrid can ilmushrikiin markaasuu bilaabay kayfa sideebuu jahara nabi muxamed ula jahray bihaa dacwada wuxuu ula jahray buur buu dul fuulay dadkii oo dhan buu u yeeray qof walbaa yimid ninkii imaan waayaa nin kale ayuu guriga uga soo taganayo waa yimid markii laysku yimid buu nabigu waan soo marnaye oo ku yidhi ma iga rumaysanaysiin
haddaan idin idhaahdo buurtan dhabarkeeda waxaa soo socda ciidan weerar idinku ah nacan bay dhaheen haddaba waxaan idinkaga digayaa buu yidhi cadaabtii ilaahay oo darneed ee ilaahay rumeeye maadaa qaala muxuu u yidhi lahu nabi muxamed camuhu adeerkii abulahabin abulahab muxuu nabiga ugu jawaabay tabban laka yaa muxamed alihaadaa jamactanaa wanagi hadda soo marayna weeyaan alkhulaasa bacda 3 sanawaatin 3 sano bacdigeed ayaa umira nabi muxamed la faray biljahri 3 sano markay soo wareegtay oo dacwadu asiran ku socotay ayaa nabi muxamed la faray dacwada inuu la jahro fajamaca nabi muxamed wuu kulmiyey sala allahu calayhi wasalama qowmahu wa andarahum qoomkiisiibuu u digay cadaab alaakhirati buu uga digay jamcuhu licashiiratihi waa darsigii ahaay addarsu 17 weeyaan meeshaana nabiga waxaa laga hadlayaa cashiiradiisa cashiira maxaa la yidhahdaa qoyskiis kulmintii nabigu uu soo kulmiyey waxaa nabiga ku soo degotay aayaddan wa andir cashiirataka alaqrabiin aayaddaa markay soo degootay wixii nabigu sameeyaa naloo sheegayaa jamaca nabiyu nabi muxamed wou kulmiyey ahlahu buu kulmiyey wa aqaaribahu qaraabadiisiina waa kulmiyey lamaa nazala calayhi dushiisa markay ku soo degootay qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa wa andir dig cashiirataka qoyskaaga u dig baa la yidhi cashiiradii alaqrabiina ee dhowaanta badnay weeyaan qaraabada kuu dhow digniinsii nabiga ilaahayo markaasuu xaqa u sheega iyagana faballaqa wuxuu gaarsiiyey nabigu hum qaraabadii risaalata rabbihi rabbigiisa risaaladiisa ayuu gaarsiiyey xaqiibuu u sheegay sharax hoose waa ka lambar ka qabanaya wuxuu ku yidhi ina raa'id waxaa carabiga lagu yidha ruuxa sahmiyaa la yidhaha meel ina raa'ida ruuxa meel sahmiyaa laa yakdibu ahlah wallaahi low kadabtu naasa jamiican dadkoo dhan been haddaan u sheego maa kadabtukum been idin sheegi maayo walow qarirtu naasa dadka haddaan kediyo jamiican dhammaan maa qarirtukum idin kedin maayo wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa inii la rasuulullaahi ilaykum khaasa wa ilannaasi kaafatan adinka gooni ahaan baa laydinku kay soo diray ummadoo dhan rasuul baan u ahaa buu yidhi walow qarartu weeyaan walow qarartu naasa jamiican maa qarartukum weeyaan qaraya qar wallaahi la tamuutunna kamaa tanaamuuna sidaad u jiifanaysiin oonbaad u dhimanaysiin wala tubcathunna kamaa tastayqiduuna sidaad u soo baraarugtiin baa laydiin soo bixinayaa wala tuxaasabunna bimaa tacmaluun wala tujzawna bilixsaani ixsaanan wanaag haddaad samaydiin wanaag baa laydinku amaalmarinaya wa bisuu'i suu'an xumaan haddaad samaydiinba xumaan baa laydinku amaalmarinaya wa inahaa qisadu waxay tahay aljannatu abadan aw innaaru abadan buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam marka nabigu qoomkiisii waa waaniyey faballaqahum tii u soo laabo matniga nabigu wuxuu gaarsiiyey qoomkiisii risaalata rabbihi wa andarahum wuxuu uga digay cadaaba yowmin maalin cadaabteed yoomkaasoo cadiimin weyn buu uga digay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo yoomkaasu muxuu yahay waa yoomka qur-aanku ou yidhi ilaahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna yowma maalin xus laa yanfacu maalun xoolo aysan qofka anfacaynin walaa banuuna wiilalna aysan waxba ku taraynin haddaad isleeda wiilal baa ku badbaadin karaa wiilashu waxba kuuma qabanayaan xoolana wax kuu qaban mayaan ee aakhirada camalka oonbaa ku raacaya weeye fatakallama alqowmu qoomkiibaa hadlay nabigu markuu waaniyey qoomkii uu la hadlayay waa hadleen kalaaman bay ku hadleen kalaamkaasoo layinan jilacsan ilaa cammahu abaalahabin shaydaankan oonbaa taagan mar walba waana dadka ninkii ugu dhowaa ilaa adeerkii abulahab maahani alladii adeerkaasoo kaana ahaa caduwahu nabi muxamed cadowgiisii al ashadda ee darnay weeyaan fa innahu abulahab radda nabiga waa radiyey raddan qabiixan radin xun buu radiyey wa dalaba minhum
قوم كيسي وحو كدل بي أبو لهب القبض عليه نبي إني قبطان ورقبته حرحير أبو يري ومد أن كقبرنا ويل كان أنا أذيروها فقال أبو طالب وحو يري له أبو لهب وحو يري أول أصلا لدى الشيء والله بان كردارنا لنمنعنه رابنا أو منعنا أو دفاعنا ويمنعنته نبي محمد يعني دفاعنا أو قفك نبو قيسا كرابنا ما بقينا انت نولنا باقينا أبو يري فرم ساري كرتين برويل كيغ marka Abu Talibna wuu difaacaya fiiri wana adeerkii waa usmeeyeen kana wuxuu leeyahay aan qabanay ummadan ka celino oo aan baabiino weeyaan mata goormo jamaa as'ila aan gelina marka mata goormo jamaa nabiyu ahlahu ahlkiisa goormo soo jamciy wana kada soo marayni maada qaala allah muxuu yiri bimaada ajaabuhu maxay ugu jawaabeen maada radda alayhi abu lahab muxuu ku radiyay al-khulaasa لما نزل عليه النبي مركي كسو دغوتي قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمع أهله بو كلميي وأقاربه نوا كلميي وبلغهم وحو غارسيي رسالة ربه فرد عليه النبي وحا رديي وهذا الحن ugu jawaabay عمه أبو لهب ردا بو رديي ردغاسو قبيحا حن halka waxa noogu dhamaaday درسيغاني طبعا إيو أفراد سيرة الرسول كالله نغو أنفعه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته